أما سنتين وحن ربعنا إنه هذا عليو مدحوينها حس الشيخ لما قدومياش حزبية دحل لبعنا سنة الرضا أخيارتك للدول ورقي هوان بلد اللي يرضى وضياشة بعض الصحافة عيدا كي سراكيشة لما أنت كسو قيب قلي وإذن سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب فرحد وين إيتها maanta inaan kala qayb qaato munaasabadan qaaliga ah oo dadka Soomaaliyeed ay xasuusanayaan meel ay joogaanba maalintii xurriyadda ay qaateen oo ay ka soo wareegtay 60 sano waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba hambaliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwii guushaas dib u hanta oo gaara ujeedooyinkii iyo aragtidii qiimiga lahayd lagu soo aasaasay dadka Soomaaliyeed inay ku noolaadaan mataqaana xurriyad iyo sharaf iyo karaamo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryana intaas markii aan ka gudbo waqtiga gaaban dartiisa waxaan u maleynaa ummad walba waxay leedahay calaamo iyo astaan lagu yaqaano waxay degantaa deegaan ummadda Soomaaliyeed Ilaahay meeshaan uu deegaan uga dhigay wuxuu siiyay af iyo diin iyo maxaan ku yiraahdaa muuqaal iyo taariikh ay leedahay dadku inay kufaan oo dhacaan wax ceeba ma laha laakiin waxa ceeb ah maalin walba meesha ay ku kufijiraan ay ku kufaan waxaan hubaa dad badan oo Soomaaliyeed maanta sanad guurada 60aad ka soo wareegtay maalintii xurriyadda waa ku faraxsan yihiin laakiin haddana waxay jeclaalahaayeen sidaan si ka duwan inuu ahaado dalka يعني سيدي أن ربني يا سيدي أن جعلين يا سيدي أن فلين أنت وما لكن عندكم إيديني أنا جالس إيدين سببتنا وحن لينا مركز لو فيريو تذكروا ما المركز أهل جماعة دولة لماذا وحأقومهم سنة تقريبا قميص جانا إسكاقادان مركز أركتي دولة لما وقت بدل لما جلينا وقت قال جليي قميص جالا بحير وميسيga marka la bixiyo dawladnimadu dad iska reebaadiyaan ahayn wax nagu cusub ay ahayd qabaa'il aan ahayn ani waxaan islaa waxay u baahnayd waqti in la siiyo horta balays barto gogol la dhigto dawladnimada la raba la soo sheego maxaa yeelay marxaladina ka guurto marxalada ku guurto kala u guurto waxay u baahan tahay inay u diyaar garowdo odayaashii iyo mataqaana gabdhihii waa dadaaleen dawladda noo dhiseen waa soo socotay wali waa daba soconaa raadki waa muuqda laakiin wali waxaan taaganahay sharciga hal ixtiraam waxay ahayd xilligan sharciga hal ixtiraamo inaan wada qaadano aan ka soo gudubno oo fulintiisa kor taagana yani ani waxaan islaahay noocan ma waa nasiib darro maanta wali inaan sharciga hal ilaaliyo sharcigu ha sareeyo aan isu sheegayno waxay nagu tahay dhaawac weyn dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan oo waliba dadka farta lagu fiiqaayo ay yihiin dadka yani xukunka loo dhiibo lagu amaanis intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo qadiyatu saaca waa doorashooyinku waa waxa aan isleenahay maanta Soomaaliya waa xaqiijisay oo ah 4 sano ba in doorasho dhacdo doorashadaas sida ay noqonayso haday sidii la jeclaa ay naqawayso siday ka badi wayso oo laga tashaday oo heshiis lagu inay ku dhacdo aqliga bani aadamka keenay dawladda waxaan leenahay waqtiga la siiyay waqtigeeda waa lagu ixtiraamay waqtiga hadda waa gabagabo ilaa haddana nidaam iyo hab doorasho lagu aadayo ma muuqdo taas waxay su'aal gelinaysaa war xagee loo socdaa dad badan waxay ku horta nimanku doorasho ma rabaan doorasho ma ka hadlaana maxaa ka hadlaysiin adinka runtii waa su'aal khatar hadii doorasho rabaan rabaan la isku joogo ani ma aqaan صراحة yaa ii sheega hay doorasho ma rabtid noo sheeg waaya waxa kale oo rabtid bal noo sheeg مثل دورة شو حارب كلجا أكتب ميسك أساس عارس كلجا أيضا مش غاينس سببتنا وح كلامها ده أنت يدلك حريان وحول بها جاجيان إدان صندوق ده وكواس ما نهب لا هذا ديارنا عندي له لكن دورة شو لا هذا يقفنا متقان وفرت السنوات ما تقولي واحد ميسك الأساس عارم له أنت قد دورة شو يمكن واد دالين وحي قبل كريني قبته أنا مرة بهذا أنا وهذا لكن واحد ربعنا إيران مسؤولية أيسن لهين يقاتل مسؤولية أيسن لهين وحواي دورش محي وبانتها كو أمني وبانت لبا وحي وبانتها شيس سدح محي وبانتها دقالة ودك دورشين كما أنت مسؤولية كسار أنت ما
waqtiga ay noo sheegeen maxay ku beesgareeyeen marka 13 bilood 9 bilood maxaa lagu beesgareeyay macnaheedu waxa waaye lama yaqaano doorasho goor ay dhici doonto bil xarf الواحد saas waa doorasho goor ay dhacaysa lama yaqaano ma shaqaynaysaa ma shaqay karto waxaan rabaa qiso cajiib ah inaan idin sheego qisadan waa qisada Abu Bakar lagu doortay radiyallahu anhu wa ardaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markuu dhintay oo ilaahay u oofsaday saxaabadu waa isqabsadeen dad waxay soo jeedeen horta nabiga aan aasno aan isu soo noqonay ma yadheen nabiga tala lagu aaso rabaayay fiiriday nabiga imaam u baahan yahay talada laga qaato si loo aaso taariikhdeena waa taariikhda islaamka saxaabadii ay joogan saxaabadii waa weynad kibaar saxaabo dhan ay joogan waa la istaagay waxa ay run waa aan qof dooranno doorashada markuu asaas nabi Muhammad akramul khalqi dadkii la noolaa waxay dheemeedkiisa noo yaala nabiga aan tala gaarno horta marka ninka ku fikiraya doorashada uu faraqa ku haysto ani waxaan leeyahay arintaas khatar waa annaga waxaan rabnaa dalkan 4 sano in la doorto dadka qaar waxay leeyihiin adiga waa ku darsatay madaxweyne xasan waa ku darsaday heblo waa ku darsaday uma dhamaahayso miyaayada miska soconaysa wax kale aan kugu daraa ani horta inta aan joogay oo xukunka ahaayay 4 sano ma dham ragaan 4 sano ma haysteen doorasho ma ku keeni waayeen miiskaas ka keenan lama haysteen talada dhinaca ka galaan doorasho waxay u baahan tahay jawigeeda in la diyaariyo jawi ma la diyaariyo jawigu ma diyaarsana hadda haddii la yiraahdo maanta haddii model la isku waafaqo asagaa waqti u baahan in mataqaanaa doorasho lagu qabto maxaa yeelay laba la socod mid la socdo nuguma jirin yani waxaa ka soo qaadaa hay'adaha dawladda kaliya hay'adaha dawladda heer federaal iyo heer maamul goboleed heer federaal baarlamaanka iyo aqalka sare waa kala tageen maamul goboleed dawladdu ma wada shaqeeyaan golaha shacabka iyo aqalka sare ma wada shaqeeyaan soo annaga dhana waxaan u baahanahay dib u heshiisiin hay'adaha dawladda dib u heshiisiin u baahan waxaan leeyahay waqtigu inta uu tagin miiska imaada tala waxa haysiin keena colaad leedin ma qabo tala leedin ku dara annaga waxaan rabnaa qaranka inuu sanfareena ka bixin ummada badanaa burburay kuwa hadda burburaya ogaada kuwa hadda burburaya maxaa loo burburaa dastuurka la ogoleen dastuurka waa inaan ogolaana annaga ogaada wadaadaan nahay waagi hore waxaan wala soo barbaariyay dastuur lama ogola dawladnimadu waa dabagalna waa fiirina waxaan ogaanay diinta islaamku wuxuu lagu heshiiyay in la fuliyo gaar ahaan marka dawladdu ku dhisay heshiis qaran oo yahay marka heshiiska qaranka wuxuu raad ku leeyahay diinta islaamka waa in la ilaaliyaa sida uu yahay in loo ilaaliyaa loo baahan yahay waxa ku jira ummadda midnimadeeda maslaxadeeda ku jirta jiritaankeeda ku jirta dawladnimadana asal ahaanba qawaacid ay leedahay la raaco dadka maxay u baahan yihiin cadaalad waxay ku imaan kartaa koow horta madaxdu inay run sheegto haddaad run in sheegin horta maxaan kugu aaminaa ii sheeg 4 sano lagu doortay 4 sano waa dhamaatay ilaa hadda wax la isku dooranaa ma hayn maxaa lagu aaminaa marka waaye waxay la tahay di dawladdu ka fikirayso dawladda shisheeye dadka ku qabanaya lama qaban karo hadday ku fikirayaan ciidamada idin tababaran kuwa kale idin imaanaya amiso ma joogta mustaxiil sharciga naqba kara gacmaheena waa bisaareen anaga isaareen sharciga bis sharcigan qabyada oo buugaas yar noogu qoran dastuurkaas kaas aan wada ogolna qoran ma rabno xabad ma rabno qabiil ma rabno qaylo ma rabno dastuurkaan rabna dastuurkaanu soo kii madaxweynuhu ku yimid maaha soo kan xildhibaanadu iskula joogaan maaha soo kan dawladda ku dhisantaa maaha asagaan ogolna asagaan rabna marka waxaan leenahay Soomaaliya maanta xilliga lagu fikirayo ka soo baxday dadkan waxay barteen waxay fahamsan yihiin dawladnimada ay u helayeen waa dad diyaara waxay u baahan yihiin wax ay tabanayaan lagala hadlo marka dalkan wuxuu u baahan yahay heshiis qaran wuxuu u baahan yahay maxaan ku yiraahdaa jawi siyaasadeed oo lagu tartami karo in la diyaariyo oo xalaal ah oo nadiif ah u baahan yahay ani waxaan aaminsanahay guddigaana hal cafiyo hal iska day maxaa yeelay wax ay sheegaan waxay sameey karaan mana la suugi karo 40 milyan iyo 60 milyan inta ka keenayaan بالله عليك انت كينايا اديك ما ملكوك ما جرت
marka doorashada ilaa 60 milyan laga helo waa la sugaa 2 sano 30 sano 40 sano هذا وما أستنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aan sagootino madaxweynayaasha